madaxda garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye heer qaran xisbiga heer gobol iyo xogayaa gobolka Awdal ayaa ka qayb galay tartan saaxiibtinimo oo kubadda cagta ah lagu maamuusay Suldaan Muuse Jaamac Goodaad oo kamid ah odayaashii kaalinta weyn ka qaatay dhismaha xukuumadda Soomaaliland tartankaasi oo lagu qabtay garoonka Rooga ee Dolaal Stadium ee bartamaha magaalada Boorama tartankan ay ku loolamayeen kooxaha kala duwan ee heerka koobaad ee gobolka Awdal ayna soo qaban qaabiyeen garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxaana xaflad tartankaasi ka hadlay Liibaan Ismaaciil oo abaabulka iyo wacyigelinta heer qaran ee xisbiga kulmiye wuxuuna ka waramay ujeedada tartankaasi keentay in cid kasta oo magac iyo maamuus ku lahayd qarankan oo u soo halgantay inay dadkani nabad helaan oo gacmaha isqabsadaan ay walaaloobaan in la xuso sababta markaa barnaamijkan loo qabtay waxa weeyaan xus oo xusuuso cidii magac maamuus iyo sharaf dalkan ku lahayd ee nabadan u soo halgantay isjeclaanshaha Soomaaliland laga taagay uu tahay gobolka Awdal Sheekh Muuse Goodaadna uu ahaa dadkii dhidibada had iyo habeenba u heegan u ahaa gobol ilaa gobol u socdaalayay sidii uu weenay nabadan loo heli lahaa kale waxa iyagu hadalka iska daba qaatay madaxa warbaahinta xisbiga kulmiye Muxyidiin Yuusuf Ibraahim iyo madaxa arrimaha bulshada xisbigaasi Mustafa Muumin Ibraahim waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan ku xusaynaa Allah u naxariistay Sheekh Suldaan Sheekh Muuse Jaamac Goodaad oo ahaa runtii sayd hore loo carbaabay dadkii Soomaaliland ka soo qayb qaatay nabadeynteedii iyo qarannimadeediiba in barnaamijkan wuxuu daaray yahay in dhalinyarada aan soo gaadhin runtii suldaankaas la xasuusiyo kuweena soo gaadhay ee waqtigaa jiray inay xasuustaan waxaad arkaysan maalintii ugu dambeysay qola ay ku yeedhayeen xusbiga wadani hal doorka Hargeysa runtii ma hayna waa hoogadii hal doorku waxa weeyii waa xooga iyo dadka ay magaca la bilo ee ku nool caasimadda iyo gobol kastaba intaasna ma noqon karto waxaan oran karnaa waa daadii iyo dadkii la geliyay beeshinka ee haraagii kulmiye ayuun baa isku urursaday inaynu ku muujino cududeena iyo xoogeena aninta codaynta November haddii la ka dhigo oo aynu soo saarno musharaxa xusbiga kulmiye si aynu u helno dhiig cusub iyo dhaqdhaqaaq cusub oo xoogeena aynu qarankan uga faa'iideyno hal doorkeeni nabadoonkii suldaankii weynaa ee kamid ahaa dadkii rukunada u ahaa Soomaaliland ee dadbada u aasay iyadoo ay ku beegan tahay July 2006 oo geeriyooday Allah u naxariisto waxaan ugu talagalay ujeedaduna ay tahay inaanu markaa ugu ducayno aanan markaa ku xusno oo ku xasuusano si aynu u dhiirigelino hal doorkeena kale ee maanta iyaguna sidaas oo kale ku hawlan hawlaha nabadda iyo horumarinka waxa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal iyo xubno ka tirsan xisbigaasi haliyigii nabadda suldaankii weynaa Sheekh Muuse Jaamac Goodaad marxuum Sheekh Muuse Jaamac Goodaad Allah yarxame aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada heer qaran ee soo abaabushay barnaamijkan quruxda badan la soo agaasinteen ee ka dhigteen magaciisa aad ku maamusteen suldaankii weynaa Sheekh Muuse Jaamac Goodaad aad baan ugu mahad celinayaa iyo cidii ka soo qabanqaabisay hawshan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii janna Allah ka waraabiyo dhammaan cid kasta oo ka soo qayb qaadatay horumarka iyo nabadda Soomaaliland waa koob loogu magac daray oo ay soo agaasimeen dhalinyarada heer qaran ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u horeeyay walaalkeen Liibaan Ismaaciil iyo Dr. Mustafa Muumin iyo Injineer Muxyidiin iyo dhammaan saraakiisha kale la socotay وعذر عافي تيفي قرنكا برماء